بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan dibad iyo daaqilba gaar ahaan waxaan salaamayaa bahda saxaafadda waa idin salaam adeer shirkaygan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay warbixin aan ka warbixinayo arrimaha gobolada Jubba gaar ahaan gobolka Gado iyo jawaab aan u jawaabayo kooxdii haraadigii Gabre oo qaranka Soomaaliyeed ku aabiyotay iyo baafin ay dadka reegada baafinayaan dad mas'uuliyiin ah oo ka fakad oga maqan markaan ku hormaro warbixinta gobolka Gado 12kii bisha 11aad ee sanadkan waxaa la cunaqabateeyay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado degmadaas oo ahayd degmooyinka Soomaaliya 18 gobol ilaa 90 iyo dhowrka degmo lagu sheegay degmada ugu population-ka badan oo xuduud la dalka Kenya iyo dalka Itoobiya labaduba ahna meesha Soomaaliya ugu ganacsiga wanaagsan markii laga reebo dekadaha afarta ah meeshaas waxaa cunaqabateeyay kooxda Kismaayo joogto oo ah haraagii Gabre ee ummadda Soomaaliyeed dhibaataynaysay ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dadka magafayaasha ay Liibiya ku qabsadaan iyo dadka dalalka fogfog lagu qabto waa loo gurmadaa dadka wadaniyiinta ah ee xuduudii 10 sano difaacaya dhagaxa ku dagaalamayay ee muwaadiniinta ee Soomaaliyeed oo afduubka lagu haysto kuwaas oo laga gooyay cuntadii 89 gaari oo degmada Balad Xaawo u raran baa taagan degmada Bardaale ee gobolka Baay waxay taagan yihiin 19 cisho dadka Soomaaliyeed ee magafayaasha ay haystaan magaalada Balad Xaawo sida laga warqaba male ceel biyood waxay u dhaansataa Malkaariyay oo 7 kiiloomitir in ka badan u jirto magaalada booyada u dhaamiyo argagixisada sharciyeysan ee Axmed Madoobe uu hogaamiyo macaamilka adduunka qaarkii uu la yeesho iyo argagixisada aan sharciyeysnayn baa iska kaashaday nus milyan qof oo Soomaali ah oo muwaadiniin ah oo wadaniyiin ah baa meeshaas cuntadii iyo biyihii labadiba laga gooyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dadka magafayaasha oo ay haystaan in la xoreeyo dhaqaalana lagu xoreeyo maskax iyo talana lagu xoreeyo sharci iyo macaamil adduunka hadii uu ka jiro la macaamilayo lagu xoreeyo laba dawladood oo dariska safaarada ay ku leeyihiin caasimadda Soomaaliya taasi waa warbixinta gobolka Gado waxaan doonayaa inaan u jawaabo nin qaranka Soomaaliyeed u gafay maalin dhaweyd siiqadiisa waxaa ka mid ahayd madaxweyne ninka waxaa la yiraahdaa Xasan Daahir Yarow ex Cornel hore Xasan Dheere Xasan Daahir Yarow wuxuu yiri Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxbaan ku xasuusanaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxbaan ku xasuusanaa Cabdullaahi Yuusuf ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud waxbaan ku xasuusanaa laakiin dawladda hadda jirta oo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre maxaa lagu xasuustaa asagoo waliba jaaifooyin iyo waxaynan mudnayn qaranka u geystay waxaan doonayaa marka inaan isweydiino Xasan Dheere waa kuma Xasan Dheere wuxuu ahaa 1998 alam sigad iyo Yuushu iyo Gabre iyo Taqlaay dadkii uu ka qortay degmada Doolow Soomaaliya ee lagu soo carabiyay Huurse iyo gudaha Itoobiya wuxuu ahaa 7 degmo gobolka Gado degmo Xasan Dheere intuu weeraro uu sanbililaqaysan degmada ceel waaqo uu gaari waayay baa ka jirta 6 kale asagoo ciidamada Itoobiya la socdo iyo bililaqaystay wuxuu ahaa Soomaalida walaalaha ee wada degan waliba qoys kamid ah qoyska reesada ninkii isku laayay ninkii bixiyay buu ahaa intay 10 tahay tiree uraalkuna taagan yahay reehbel tiir baa u suran ninna kama raba tolnimo tirtira tuulooyinkan qof nool yaan looga tagin Xasan Dheere wuxuu isku dilay 2003 oo wiil oo walaalaha ilma adeero oo diyada iyo dhalashada iyo dhiigu ay ka dhaxayso buu gobolka Gado Amxaara ku laayay isku laayay asagoo sida dambiilo oo aan cidi ka cinqaabin baa 2008 waxa laga dhigay taliyaha divisionka gobolka Gado ama qaybta booliiska gobolka Gado 2010 baabuurkii boolis federaalku uu lahaa oo goodirku ku sawirnaa iyo qalabkii qaranka iyo taarkii booliska iyo waxa weeye organitadii uu kala baxsaday degmada Doolow Soomaaliya degmada Balad Xaawo la gala oo ay shabaabku haystaan halkaas tawxiidka looga qabtay YouTube-yada ku jirtaa nin walba waa arki karaa hadda muxuu ka shaqaynayaa sida aad ogtihiin 28kii bisha June 2018 Maxamuud Siid Aadan shir jaraa'id uu ku qabtay degmada Kismaayo wuxuu ku yiri
waa in la daayo deegaamada la deegaamaynayo ee gobollada Jubba taa ujeedadeedu ay ahayd iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee waxa weeye la tayaynayo si ay ula dagaalamaan ururada argagixisada ah ama ay u sugaan amniga xuduudaha arrintaas buu ka hadlay 28 Juun asagoo dawladda ku dhaleecaynaya ciidamada ay diyaarsanayso Maxamuud Sidaadan amarkaas wuxuu ahaa warqad loo soo dhiibay af kale ah wixii ka dhaxyeerayay waxa dhacday in la sameeyo arrintaas waxa looga hortagayaa ciidanka qaranka inuu qabto bu'aale saakow jilib jamaame xagar iyo badhaadhe degmooyinka gobollada Jubba ay ka joogaan kooxda argagixisada aan sharciyeysnayn kaalmaatigana waa argagixisada sharciyeysan ee Axmed Madoobe ayuu taa laga duulayo amarkii Maxamuud Sidaadanna la fulinayo ceel biyood laga qodayo meesha la yiraahdo Kurda oo u dhaxaysa Gariley iyo meesha la yiraahdo Daar es Salaam dadkii dhulka deganaa in la qaybiyo la hubeeyo laba gacmood loo hubeeyo la yiraahdo talxiya raadamir baatiinayaan ceelasha la qodanin 82 cishaa riig ay reeraha kamid ah ay soo kireysteen ay dhaqaale ku bixiyeen wuxuu taagan yahay meesha la yiraahdo Kurdo laba ciidan oo midna iyagu ay abaabuleen midna al-shabaab abaabuleen aan isdilayno iska soo horjoodo oo qaab qabiil loo adeegsanayo inay sameeyaan degmada Baardheere waa la socotaa waxa ka jiro koodii Luuliya 2018 iyo xilligan gobolka Gada guud ahaan wax maamul kama jiraan saad la socotaanbo dhibaatadaasna waxa weeye kooxda ayaga waxay wadaan bay kamid waxaan leeyahay marka uuri intaas oo qiso wada quuxiyo qatarisaanaya qaybaan si qarshiye qaaran mara saaray waa qisooyinka aad geysateen been ma soo qorin adigoo qudaar soo hanbaday qaadna ku weesho qalad weeye qoodow inaad qaranka cayda xasan dheer waxaan leeyahay naanaysiisa qoodow ahayda qaranka aad u gaftay waxa keenaya waa rafasho saaxiibka gabra waa xiran yahay alam sigad iyo iishu nimanka adiga ku tabcay inay ilay waa xiran yihiin adiguna wadadoodii baad haysaa insha Allah ta'ala dadkii aad isaga soo kaayalaysa horena waa laga ciqaabi dad dambe oo gobolka u dhashayna iskuma leeyin doontid waqti dhumay baad daba taaganta xasan dheere dadka reegada waxay baafinayaan labada gole ee baarlamaanka dadkii ugu jiray kuwaas oo tiradoodu ay ka badan tahay 17 qof oo rag iyo dumarba leh kuwaas oo 5 bilood gobolkii aan maamul ka jirin oo laba argagixiso miduna sharciyeysan tahay miduna ayna sharciyeysnayn shacabkooda ay dhibaataynayso oo 24 maalmood biyuhu iyo raashinku degmadii balad xaw ay ka go'an tahay aan wax hadal laga maqal oo maamulkaas waxa weeye burbursan sidii loo dhisi lahaa iyo wax wada tashi aan laga maqal nimanka waa la baafinayaa waxaan leeyahay il gaar ah lagu eego qurba joogta iyo jaaliyadaha dadkaas reer Gada waxaan leeyahay nimankan aan baafinayno il gaar ah lagu eego waxaan rabaa inaan ugu dambaysiiyo shakhsiyaadka baastada labada gacmood ku cunayo oo darajada qaranka sito oo wasaaradda gaashaandhigga mushaarka ka qaata ama wasaaradda amniga mushaarka ka qaato oo ay u adeegaya argagixisada sharciyeysan iyo mid aan sharciyeysnayn adinkuna waxaan u malaynayaa maxkamadda ciidamada qalabka sido leeskiini waa yaala waa la idin la xisaabtami doonaa adinkuna insha Allah waa mahadsantiin wixii su'aalaadana waa idin furan yihiin waxaan leeyahay taliska booliiska Soomaaliyeed wasaaradda amniga waa markii labaad oo aan baaq idin diro maanta ay taariikhdu tahay 28 saacaduna ay tahay 12 iyo daqiiqado waxa ka socota xabad degmada Garbaharey qayb kamid ah waxa weeye xabadaas oo lagu beegsanayo dad shacab ah waxa xabada ridaya taliyaha booliiska gobolka Gado aadan maxamed siyaado loo yaqaan aadan dhafoorey iyo saddex digle xooga dalka Soomaaliyeed iimaan cadow kaarshe aadan cadow kaarshe saddex digle xooga dalka Soomaaliyeed aadan cadow kaarshe waxaan weydiisanaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sido wasaaradda amniga wasaaradda arrimaha gudaha shacabkaas lagu joorfalayo la leynayo wakiilka ka ah kooxda ayaga ah ee darajadii qaranka sidato dadka shacabka ku joorfalaysa in cadaalad la keeno carbi weyl hadii aan marshoon gowrac ku caseeyay nafta dibiga ha iska casilo ciidda ha isdhigo maamaaba jirtay la yiraahdo weysha gowrac dibigu ha caalqaatee waxaan idin leenahay kuwa darajada qaranka sito oo dadka shacabka oo afkaartooda muujinayo dhibaatooday oo qaarkood afduuban yihiin oo hadlahaya xabadaynayo hadii cadaalad la keeno argagixisada sharciyeysan iyo mid aan sharciyeysnayn ba dhabar jab bay ku tahay laakiin hadii aan cadaalad la keeno waxa ku dayanayo wax magarato badan oo ama si sahlan darajo qaran ku qaadatay
ama waxa weeye siyaabo kale loo adeegsanayo marka waxaan codsanaynaa saddex digle xooga dalka aadan cadow kaarshe iyo ninka la yiraahdo aadan maxamed siyaad oo loo yaqaan dhafoorey waa in cadaaladda la keeno waa codsanaynaa wasaaradda amniga iyo tan arrimaha gudaha arrintaas aan ka codsanaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.